gantaalka ka soo fakaday China hadii lagu dhihi lahaa waddan ku aadi waddan ku aadi lahayd saaxiib maxaan ku aadi lahaa Somaliland aniga Kenya ku aadi lahaa Kenya waayo Kenya nafti baa noo keentay waxa weey waa naga dhamaan lahayd in dambe nooga dhamaan lahayd marka haddaan ku aadi lahaa dambe nooga dhamaan lahayd ya anigu waa fiicay waa rabaa waxaan ku aadi lahaa gaalka ugu weyn oo Mareykanka ku aadi lahayd Turkiga maxaa dhacayso وعليكم السلام magacaaga محمد عبد الولي maxamed su'aal baan weydiinaynaa su'aasha waxa ka horeysa sidatan waxa la yiraahdo gantaalka ka soo fakaday China hadii lagu dhihi lahaa waddan ku aadi waddan ku aadi lahayd ayaga laftigooda ku celin lahaa ayaga corona noo keenay haddana gantaal bay ugu soo celiyay ayaga ku celinay sababtay corona u keenay haddana gantaalka ka soo fakaday ugu celin lahayd waa xaasidnimo ay waliba Soomaaliya u qaba Soomaaliya ku soo socdaa baa la leeyahay marka ilaahay ayaga shirkooda ku celiyay waa garta waxaan weydiinaynaa hadii lagu dhihi lahaa waddan ka badbaadiya ka badbaadin lahayd waddan ka badbaadin lahayd waddan Afrika qaaradda ka badbaadin lahayd qaaradda Afrika waddanka Soomaaliya uu gaaraan iya nanu waxa iga soo gaaraya waa garta waxa waddan ka badbaadin lahayd Soomaaliya dhacay inuu waxa iga soo gaaraa laga yaabaa adiga marka in adigu soo gaaro darteed iska leexday okay waa sata عليكم السلام magacaysa صاحب معن جراد garaad waxaan ku weydiinaynaa anigoo gantaalka ka soo fakaday China hadii lagu dhihi lahaa cid ku aadi yaa ku aadi lahayd in adeerow daan isku dayo noo dalkan isha la yiraahdo Shiina lafteedu ku celin lahaa saaxiib sababta saaxiib maxay uga soo fakanayaa macnaha wuxuu uga soo fakanayaa saaxiib iyaga khaladka iska la saaxiib iyaga ku aadi lahaa wallahi waa gartaa hadii lagu dhihi lahaa cid ka badbaadi oo ka ilaali aan waddankaaga ahayn cid aan waddan kale aan waddankaaga ahayn yaa ka badbaadin no waxaan ka badbaadin lahaa dalkan isha la yiraahdo oo Djibouti saaxiib Djibouti soo saaxiib ma waa dal macnaha Soomaaliyeed oo naga go'ay haddana Armenia soo ceshana saaxiib dalkaas macaan ku aadi lahaa saaxiib baa ka badbaadin lahaa waa sita saaxiib lama saaxiib macaan assalaamu calaykum وعليكم السلام صاحب magacaaga صاحب magacaygu waa maxamed waadir magacaygu waa ganacsade ciise cabdi khadar cali oo ku magac dheer Joses okay waa maashantii saaxiib su'aal baa ku weydiinaaday nin wala markiisa la weydiinaa waxa ka oranaysaa niyow madfiic ka fakaday China hadii lagu dhihi lahaa waddan ku aadi waddankee ku aadi lahayd kii ka soo fakaday China nin wallahi waxa jeclaa nasiga dib u laabtay waxa dhacay walaayo ruuxa maray corona noo keenan anagu ma agay aan dhulka hoostiisa galnaa saaxiib iyaga dacwada iyo ma iyaga ku celin inuu ku laabtay ilaahay ka rajeynaya insha Allah okay waa sida adna iyo niyo lurga soo fakaday waxa u rajeynayaa inuu ku dhaco dalka laftigiisa soo sameeyay China inuu ku laabto jeclaan lahaa niyo dalku dal caadi maaha ونقول ترى جلاس هذا وحن يو كورونا إفرسيو يلقدر ما قد ما حملنا إنه عيان صدرت مصن بعيش بحالنا ما نيو ودك كلها وعدنا نيو إله نقبض بعدي أنا هذا وقت إسكت وحن كوادي لها وحرر الله سلا دلكي ساكولا بتأر الله كلها بتأر الله صوت وحوي أصلا سوري سماها كسر فكذا يا كون إن نفط ورد على كيو كسر فكذا لفتي سا أو بطاقة تعطي أوكي هذه اللي لها مد كبد بادي وطن كبد بادي أو وطن كاجا هين يا كبد بادي يا والله بالله تلاهي شرملك قفا شعلها شوكتني ولا صار شرملك لو كل عمري شيلنا أوكي هذا يا كبد بادي تركيا كبد بالنا صوته سكوت بنا إسلام وانا سما دين بودينا سيد درات Soomaali ma ku jiraa waxaan u baahay waxa Soomaali ahayn Soomaali ku jira Soomaali niyo mid jeclaa waxay joogtaan Faransiiska waxaan leeyahay Faransiiska isku dhicin insha Allah waqafta darteed baa leedahay oo socda insha Allah oo ugu gudbinayaa fideogan niyo daalo baas China niyo naga fikada maxay tama ka baal tuuriyaa waxaan ugu wadaa naga daayaan niyo calad bal ciyaarka dhahay ciyaarka ila kabla dhacaya ka baqayaan niyo ila yaro nasraam yaa saaxiib aywa baas assalaamu calaykum alaykum asalaam magacaaga فارح سلام سلام اوكي سؤال ويدينا حكورن ساعه هذي لو دي لها waxa la gantaalka China ka soo fakaday hadii lagu dhihi wadan ku aad wadkii ku aadilay hadii la dhaho wadankeebu ku aadi wadan ku aadi adiga oo wadan ku aadi adiga chance ka haysta adaa heegaya wadan ku aadi marka wadankii ku aadilay waxaan ku aadin lahaa waxaan ku aadin lahaa
baddaas laakiin may waddan baa lagaa rabaa waddan waa sax weeye waddan baa la rabaa soo maaha waddan baa la rabaa soo maaha anugu waxaan cidaan gaalada ahayn oo hadda aan ku aadin lahaa ma jiro gaalada waddankee kaga aadin waddankee gaalada lafteeda kaga aadin anigu waa fiican yahay waa rabaa anigu waxaan ku aadin lahaa gaalka ugu weyn oo maraykanka ku aadin lahayd okay haddii lagu dhihi lahaa waddan ka badbaadi aan waddankaaga ahayn waddankee ka badbaadin lahayd waddanka aan Soomaaliya ahayn waddanka Soomaaliya ma waddan kale ka badbaadi waxaan ka badbaadin lahaa oo keliya carabta oo way uga badbaadin lahayd carabta sida wadaadkaas u gumaaday laaligaas islaamnimada baan uga badbaadin lahaa okay waa baasata adda aniga saashiisa bilow horta haddii lagu dhihi madfac China ka fakaday waddan ku aadi waddankee ku aadi yuhuudda saaxa yuhuudda sababta waa muslim nacayb saaxa annagana muslim baana haddii lagu dhihi lahaa waddan ka badbaadi waddankee ku badbaadin lahayd suuriyaanka saaxa sababna waxaa ka badbaadin waa waddan aniga ila diina Soomaa sax wadamo badan baa kula diina laakiin Soomaa wadamo badan ila diina way jireen laakiin xagga diin ahaaneed haddii loo iyo caqiida ahaan iyaga noogu sokeeyeen beenba okay waa baasata adaa mudan saaxa assalaamu calaykum وعليكم السلام magacaaga سور كونغرس Yaasir سور كونغرس okay waxaan ku weydiinaynaa madfaci China ka fakaday haddii lagu dhihi lahaa cid ku aadi waddankee ku aadi lahayd horta ma xuma in wada lagu aadiyo ma la haysan karaa jeebka ma la gashan karaa baag maya ma horta jeebka gashanaya kabacdi marka jeebka haddii la gashan karo waa haynaya cabaar markaa hayst kabacdi waa kasoo fikeraya laakiin haddaan lama gashan karo China waxaa haysataa inaad leexisay soo hawada maray cid ku leexisid yaa ku leexin lahayd waxaa ku leexin lahaa walaa cidna badda cid baa la rabaa inaad doorito waddan warmada ma dooranaya waxaa dhacay waddamada u xanaaqsantaa maciil u qabta ma jiraan yaa may waddamada dhan heshiis baa la taa muslim gaalba okay haddii lagu dhihi lahaa waddan ka badbaadi waddankaaga ahayn waddankee ka badbaadin lahayd turkiga maxaa dhacay sabab maya turkiga odaygigaa jooga oo dhaba haa okay waa baasata assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga حرر ديق عبد الله والله عبد الله محمد أيوة محمد عمر شبع أيوة أوكي waxay weydiinaysaa su'aal gantaalka ka soo fakaday China haddii lagu dhihi lahaa waddan ku aadi waddankee ku aadi lahayd ساعب معان كو أدلة سومالان sabab sax ساعب سومالان ساعب صومالي كبح سنت هكا إذا استقرتي إنه كل عربي ساعب على بابا هذا يدمر maxaa baabiinaysaa maxaa kaa soo gaadhay ساعب دينه ومدة إذا ما لا أقرب النيو أنا وأنا قربت الله أقرب السبب إنه كل عربي أنا إذا okay waxa la yiraahdo adiga waddankee ku aadi lahayd والله laga caliyo anu wadan lama jeclaadeen naf walba naftaada laga matalaa marka dad walaalahayo kala ama gaal ama muslim ha ahaado ilaahay qofku ma banayn inaad dishid balse ma China laakiin adiga lagu dhigto qof laakiin fikirkaaga adiga cid baa lagu yiri ku aadi China ka saastaa cid ku aadi haysta cid ID kuma aadi cidna kuma aadiyeen laakiin ogo mar waxa jirta mar waxa sameeyay lagu dhigi karo marka maxaa yaa sameeyay lahayd markaas de marka hadda ma haysid adiga waxba ka baqin hadda cid ma dirsid xukun laakiin xukun haduu yimaado wallahi niyow bada military aan ka kaadila waddan ku aadi ma wallahi oo ku aadi kara saa okay hadda aniga Kenya ku aadin lahaa Kenya waayo Kenya nafti baa noo keentay waxa weey wanaga dhamaan lahayd in dambe nooga dhamaan lahayd marka haddaan ku aadin lahaa dambe nooga dhamaan lahayd marna xuduudda ay dadku qashqashaado iyo maray Soomaaliya soo dhax gasho maray nagu meeraysato ila meerayso inay naga daysaa marka ayadan ku aadin lahaa gabigeeda dabay dacal baabaade okay haddii lagu dhaho cid ka badbaadi waddan ka badbaadi waddankaaga ahayn yaa ka badbaadi lahayd ساعب معان قيم بالبلاي عاصمتي دي قدش may waddankaaga ma aha waddan ahayn waddankaaga waddan ahayn ka badbaadi wadankii wadan aan ahayn timaba jira marka hore kuma aad marka horena waxa kuma aadi Soomaa maya lacala hadda haddii waddankaaga waddan ahayn ka badbaadi baa lagu yiri waddankee ka badbaadi wadankaaga wadan aan ahayn ka badbaadi Turkiga dhawriya may wadamada Laatinka ku aadi ka badbaadin lahaaniyo ka soo adigu America wadamadaas ka badbaadin aniga Ciraaq iyo Suuriya ka badbaadin lahaa oo ayaga dhibaataysan masaakiinta assalaamu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga فرحية محمد يوسف farxay su'aal ku weydiinaa ku oranaysaa gantaal ka madfac ka soo fakaday ama gantaal ka soo fakaday China haddii lagu dhihi lahaa waddan ku aadi waddankee ku aadi lahayd إسرائيل يهودا
ku aadin lahay sabab yahuudda waa kuwa falastiin masaajidka al aqsa xalay sidii loo okaday iyadoo taraawiix lagu tukanaya u galay ilaahay waxaan ka baryaynaa islaam haddaan nahay yahuudda ilaahay inuu dhulka u gooyo muslim baan nahay okay haddii ku dhihi waddan ka badbaadi aan waddankaaga ahayn waddankee ka badbaadi lahay ordoqan rajab dayib ordoqan turkiga walaalayga islaamku ay garab taagan iyo ordon sabab iyo gadar waa muslim maantaba ka dhiidhiyo waxa lagu sameynaya falastiin وما صدق أيوه يا